waa hagaag daawadayaal halka aad weli nagala socotaan waa TV-ga Soomaali Weyn oo aad ka daawataan obna kanaal daawadayaal haatan waxa aad ku soo dhawaataan waraysi aan la yeelanay qoraaga weyn ee soo taabsan yahay arrimaha dastuurka waraysigaasi waxaan kula yeelanay xilli uu yimid magaalada Yatboori inuu ka qayb galo bandhigii buugaagta ee lagu qabtay magaalada Yatboori ku soo dhawaada waraysigii xildhibaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن أقيارته ودينا قداونيساي كسر دوادا ورئيس جارة ونقول يلا نيمت كمده قراياش الصوماليات أهنا نين سياسي أو يرادو عبد العزيز علي إبراهيم حلبان عبد العزيز علي إبراهيم حلبان وحين ورئيس كل يلا نيستوديها Soomaali Weyn TV وكل هاي مقالة يتبوري عاصمة اللباد ودن كان سويدن عبد العزيز وحاو مقالة يتبوري ويمت سفر جابن وكاسي أولوسو بندقة يدقن كيسوغان الصومالي دا ay soo bandhigayeen jaaliyada Soomaaliyeed ee Puntland Cabdicasiis ku soo dhawaaw Soomaali Weyn TV magaalada Gothenburg waa dhawahay waad mahadsan tahay waraysiga aan rabnay inaan Cabdicasiis la yeelano caawa waxa uu ku saabsan yahay arrimaha dastuurka Soomaaliya waxaan rabnaa su'aalo yar oo gaagaaban inaan wax ka weydiino Cabdicasiis dastuurka cusub ee Soomaaliya iyo waxyaabaha uu qabo maadaama uu yahay nin siyaasi ah waxna ka qora arrimaha Soomaaliya Cabdicasiis su'aasha ugu horeysa aan rabay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay dastuurka cusub ee Soomaaliya ee qabyo qoraalka ah waxaan filayaa inuu wili yahay qabyo qoraal oo aan la dhameystirin doorka ay ku leeyihiin qurba joogta Soomaaliyeed ee ku nool wadanka dibadiisa door inta leeg ay ku leeyihiin ma u suurtagelaysaa inay cod ku darsadaan ma u suurtagelaysaa inay fikrado ku darsadaan doorka ay ku leeyihiin qurba joogta Soomaaliyeed dastuurka cusub ee Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan marka hore maamulka iyo shaqaalaha telefishinka Soomaali Weyn uga mahad celinayaa martiqaadka ay sameeyeen inay waxiga weydiiyaan arrimaha murugsan ee Soomaaliya waxaan sajeclaan lahaa marka hore in hadalkayga ku bilaabo ammaan iyo mahad ballaaran oo aan halkaan uga jeedinayo barnaamijkii bandhigga taariikhda sugaanta ku saabsanaa ee jaaliyada Soomaalida ah ee ku dhaqan Gothenburg ee Puntland ay ugu casumeen markii labaad inaan ka qayb galo kulankaas oo ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha bulshada Soomaalida ka sokow dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan halkan waxa sanadkan yimid dad Soomaaliyeed oo ka yimid magaalooyin fara badan oo ay kamid ahaayeen ama dalal ay kamid ahaayeen Mareykanka Ingiriiska Soomaaliya iyo Sweden lafteeda iyo Canada namaan iyo mahad ballaaran kadib waxaan rajaynayaa inuu sii socdo asaasna u noqdo ilaalinta afka Soomaaliga ah halganka dadka Soomaaliyeed ay ugu jiraan ubadka Soomaalida ah ee ku dhasha guud ahaan dalalka ku yaala Yurub ama America taageero dhinacaas amaan iyo mahad ballaaran kadib markaan u soo noqdo dooda qabyo qoraalka dastuurka la doonayo Soomaaliya in ay yeelato anigu waxaan daabacay sanadkii 2005 buug aan ugu magac daray waxay ku dhigeen ma kugu dhaqeen buugaas oo ah buugga halkan yaala taytarkiisu yahay waxay ku dhigeen ma kugu dhaqeen oo ka kooban dhammaan dastuuradii axdiyadii iyo xeerarkii loo dhigay Soomaaliya buuggan ujeedada aan markii hore u qoray waxay ahayd in dadka Soomaalidu ay helaan marjac u sahli kara marka isqabad u yimaado madaxda ay doortaan meel ay u noqdaan oo ay ka helaan muxuu ahaa dooda qodobka uu ka taagan yahay su'aashii ahayd doorka qurba joogta Soomaalida ah ee dastuurka qabyo qoraalka Soomaaliya guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed waxay halgan maanta ugu jiraan sidii dib loogu soo nooleyn lahaa qarankii Soomaaliyeed ee burburay wuxuuna dastuurka lahayo hawshiisa u fasaxaya guud ahaan dadka Soomaaliyeed ha ahaadeen dad ku dhaqan gudaha dalka Soomaaliya ama dibadiisa ee ay kamid yihiin jaaliyadaha ku dhaqan dalalka reer galbeedka ah Carabaha ama Mareykanka ilaa Canada inay codkooda ka dhiibtaan laakiin waxa jirta dood qiimo leh oo intii uusan barnaamijkan bilaabanin ka hor walaalkii Soomaaliyeed soo jeediyay oo ahayd waqti adag bay dadka Soomaaliyeed marayaan dadku khasab maaha inay ka wada qayb galaan inay aaraadooda ama fikirkooda ka dhiibtaan hanaanka uga haboon dastuurka Soomaaliya uu yeesho dadku wakiilada la doorto ee shacbiga hogaamiya ayaa
kaba dambaysta ansixinaya dastuurkaas ha ahaado mid lagu ilaalinayo xuquuqaha ay leeyihiin iyo waajibaadka gudashadiisa lagu leeyahay. waan gartay cabdicasiis aad baad u mahadsan tahay. su-aasha labaad aan rabo inaan ku weydiiyo, ma jirtaa xaq u ogolaanaya dastuurka cusub ee Soomaaliya qurba joogta Soomaaliya oo ku saxiixan dastuurka taasoo sheegaya qodobada ugu muhiimsan ee qurba joogta ay ku leeyihiin dastuurka? ma jirtaa dastuurka inay ku jirto qodob saxiixay? halganka dadka Soomaaliyeed ay ugu jiraan hanaan xasiloon oo ay Soomaaliya yeelato dadka horjoogayaasha maanta ka waxaa ugu badan dadka Soomaaliyeed ee ka noqday dibadda ee ka qayb galaya in dalka Soomaaliya cagihiisu dib isugu taago ama ujeedadoodu ay tahay inay ka qayb galaan sidii Soomaaliya loo xasilin lahaa. dadka Soomaaliyeed ee ka qayb galaya hawshaasina magacyadooda in halkan ka sheego baahi loo qabaa inay jirto ilama ahaan madax badan oo Soomaaliyeed baa jirta qaarkoodna naftooda ay ku waayeen u adeega dadkooda kuwaas oo kooxaha diidan nabadgelyo iyo xasilooni Soomaaliya ka dhalata ay maalin kasta qaraxyo la beegsadaan. dastuurka la qoriyana qayb bay ka yihiin in iyagu wax ka ansixiyaan. cabdullaahi xasan jaamacaye ah gudoomiyaha guddiga dastuurka qabi qoraalka ah ee Soomaaliya loo samaynayo. anigu intii aan isaga aqoonta u lahaa wuxuu muddo dheer ku noolaa jamhuuriyadihii la oran jiray Russia. maantana wuxuu madax ka yahay guddiga loo xilsaaray inay sameeyaan dastuur Soomaaliya ay yeelato. kasokow qodobada laga qaatay dastuuradii hore Soomaaliya ay u lahayd waxay soo kordhiyeen dadka Soomaaliyeed doodaha maalmihii tagay ay hayeen ee ahaa in dastuurkaasi wax lagu yeelayo qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya. dastuurkaasi cidda uu u fasaxayo in Soomaaliya maamulkeeda ka qayb gasho, laakiin waxa laga maarmaan ah anigu ma awoodi karo. waxaa iman doonta maalin sida wadamada reer galbeedka ah muwaadiniintooda iyagoo dalal kale ku sugan codka ay uga soo dhigtaan safaaradahooda in dadka Soomaaliyeedna codkooda maalintooda ay soo marin doonaan safaaradaha Soomaaliya ay ku leedahay ama ku yeelan doonto dalalka dibadda. laakiin waxaa laga maarmaan ah dadka Soomaaliyeed inaan dood lagu gelinin dastuurka la doonayo Soomaaliya inay maanta yeelato. laakiin cabdicasiis ma jirtaa qodob sheegayo in ay codkooda dhiiban karaan ama ay soo marsiin karaan ayagoo joogo wadanka marka ay ku nool yihiin codkooda inay soo marsiiyaan maxay ahayd hawada qurba joogta qodob ma jira saxiixa ay dastuurka ku jiro? halkan marka laga reebo kan hadda doodiisa ay socoto maanta hadalayntiisuna dadka Soomaaliyeed intiisa badan ay ka hadlayeen waa jira oo muwaadiniintu ha ahaadeen kuwa gudaha ku nool ama kuwa dibadda ku nool intaba xuquuqahooda waxaa lagu xusay dastuurka ay Soomaaliya yeelan doonto ama kuwii baryihii hore Soomaaliya ay lahayd intaba waa lagu xusay. muwaadin kasta ee Soomaali ah ama haysta laba dhalasho oo ah Ingiriis iyo Soomaali, Ingiriis iyo Talyaani, Ingiriis iyo Swedish wuxuu xaq u leeyahay inuu dadka ka qayb galo adeega dadkiisa. marka waxay la tahay faahfaahintaas ka badan haddii aad weydiinaysid waa wax kale, laakiin dastuurku waa qeexay wuxuuna qeexayaa xaqa qofka Soomaaliga ah uu leeyahay inuu ka qayb galo adeega dadkiisa. cabdicasiis aad baad u mahadsantahay. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal kale oo midaasi ka daba dhow. haddii wiil ama gabar Soomaali ah oo ku nool wadanka dibadiisa uu guursado gabar ama wiil kale oo ajaanib ah, ma jira sidoo kale qodob sheegaya ama ogolaanaya in qofkaasi ajaanibka ah ee qofka Soomaaliga guursaday hadduu u baahdo inuu qaato dhalashada Soomaaliga inuu qaadan karo qof Soomaali noqon karo? xuquuqaha dhinaca qaadashada dhalashada Soomaalida ah waxay ku cad yihiin dhammaan xeerarkii iyo dastuuradii xeerarkii ama shuruucdii Soomaaliya loo sameeyay. guud ahaan kasoo kan maanta doodiisa ay soconaysana waxaan rajaynayaa haddii dadka qaar uu mugdi kaga jiro hanaanka lagu heli karo qofku inuu noqdo muwaadin Soomaali ah waxaa dhici doonta faahfaahin ka badan ama xeer hoosaad lagu cadaynayo si shakiga dadka ku jira meesha uu uga baxo baarlamaanka gaarka ee Soomaaliya uu ka doodi doono ama doodiisaba lagu daray kan hadda soconaysa. laakiin shaki kuma jiro
heerka iyo awoodaha qofka Soomaaliga ah ama aan Soomaaliga ahayn ee wiilka Soomaaliga ah guursaday ama gabadha Soomaaliyeed ah guursaday waxa dastuurku uu ogolaanayo ama inuu ku noolaado gudaha ah ama inuu qaato dhalashada dhamaantood waa lagu cadeeyay dastuurka la doonayo Soomaaliya inay yeelato waan gartay Cabdi Casiis waqtiga oo aad noogu gaaban waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aasha ugu dambaysa ee ku taxalluqda arrimaha dastuurka waa maxay farqiga u dhaxeeya dhaqanka islaamka diinta islaamka ee anagu aan haysano in ku dhaqanno iyo dastuurka cusub ee Soomaaliya waxaa dhici karta hadalaynta dadka Soomaalida ah ee islaamnimada iyo xeer bini'aadamku ay goosteen qaabkii ay isaga ganacsan lahaayeen ama u wada noolaan lahaayeen ama xuduudaha quraanka kuma qorna dadka in marsiyo looga dhigto maaha diinta islaamka oo ama lagu jahawareeriyo waxaan nahay dad islaam ah oo rumaynaya diinta islaamka ah dhammaan sharciyadii Soomaaliya ay yeelatay waxaa ku jira qodobka dastuurkii ugu horeeyay oo Soomaaliya ay yeelato oo kala qodobkii saddexaad waxaa ku qoran la Islam ee la religione del Stato islaamka ayaa ah diinta dawladda macnaha dastuuradii ka dambeeyay ee ay Soomaaliya yeelatay dhamaantood waxaa lagu sheegay diin aan ahayn tan islaamka inaan lagu baahan karin dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya dadku waa islaam diintu waa islaam dadkuna waa muslimiin laakiin waxay u baahan yihiin waxbay dadku xeersadaan marka bulsho ganacsi u dhexmaraayo waxa ay ku kala bedelanayaan qaabka ay u macaamilayaan bunuugta ama bangiyada lacagaha la dhigto sida loo kala qaato deymaha dadka la siiyo qaab islaamku maalgelinta diinta islaamka hadii iyaga macno kale u heli doonaya inay u sameeyaan laakiin islaamka iyo diinta ay haystaan dadka Soomaalida ee islaamka ah ma diidayo inay xeer ay kula macaamilaan ummadaha adduunka intooda kale ay samaystaan diinta in marsiyo looga dhigto maaha ama dadku ay u arkaan qaybaha xuduudaha looga fuliyo ee dadka gacnaha looga gooyo dambiilayaasha ah ama lagu dilo dhagaxa in misaal looga soo qaato ku dhaqanka shariicada islaamka ruuxii xadgudba islaamku waxa uu ka qabana dawladda cadeyn doonta waana lagu fulin doonaa marka ay dhacdo inuu la yimaado wax ka soo horjeeda islaamka ama diinta uu ka baxo laakiin dadka Soomaaliyeed dastuur waa u baahan yihiin aad iyo aad waad mahadsan Cabdi Casiis Cali Ibrahim xildhibaan oo aan waraysi kula yeelanay stuudiyaha TV-ga Soomaaliyeed ee magaalada Gothenburg intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa waraysigii gaabnaayeen Cabdi Casiis la yeelanay inta aan dib dambe waraysiyo noocan kale ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo